shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mar labaad aan ku celiyo arrinta tani waa idin maqalnay baarlamaankii alxamdulillah mahad ilaahay yaale golaanu leenahay oo shuruuc baanu leenahay aan ku kala baxno wixii la toosinayay iyo dhammaan la dejinayo haloo daayo kuna kalsoonaada wakiiladiina xildhibaanadiina golaha shacabka idin fadhiyo insha Allah ayadana xal ayaan ka gaaraynaa laakiin dibadda hal joogo gudaha ahaato hal la ilaaliyo xasiloonida hal la ilaaliyo yaana la dhageysanin kuwa beenta shubay meelahaas wax ku qorqorayana iska ilaaliyo haddaad doontaan telefoon noo soo dira nawaraysta website-keena aada laakiin waxaan taroorkaada sida uu gudoomiye ku-xigeenka labaad uu sheegay waxyaabaha noocaas oo kale dadka dibadda jooga oo qurbo joogta ah way ku laabkacayaan way sii kicinayaan waa marin habaabinayaan alla ka cabsaday alla ma ka cabsadaan kuwaan oo kale mar dhowr jeer aan u sheegno waxa waa amaano aakhirana waa la weydiinaa marka meel ay tagayaan ma aqaan aakhira kuwan cadaab Allah ku riday marka maanta waxa intii isqortay xildhibaano intaasay ku ekeed doodiina waxaan rabaa inaan xildhibaanada xusuusiyo qodobka 56 faqradiisa shanaad oo oranaysa gudoomiyaha golaha shacabka asagoo la tashaday ku-xigeenadiisa waxa uu magacaabaa guddiyo u xilsaaran in ay qabtaan howlo gaar ah warbixintoodana u soo gudbiyaan gudoomiyaha golaha shacabka si loo horgeeyo golaha shacabka saa daraadeed waa guddiga baan dhisi doonaa ilaa berito waan ka shaqeynaynaa sabtigaan idin keenayaa guddiga iyo xilkooda iyo magacyadoodana waa idin soo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo saa daraadeed waad ku mahadsantihiin shirkan waa noo xiriin